ninkaan ma taqaanaan maxaa la yidhaahdaa Rajab Tayyip Erdogan waxaad isweydiinaysaa facebookyada ku arkaysaa ajaljiisar ka dhagaysanaysaa Erdogan waxa sameeyay Erdogan saas uu Erdogan waxaanu yaanay Turkiga halkaan uu qeylaa halkaan uu Turkiga u qaaday cirku geeyay dhulku geeyay xaq buu sameeyay what you know about Erdogan xagta waxa kugu filan Erdogan inaad la sheekaysato kitaabka taariikhdiisa in akhrido wixii laga qoray in akhriso marka aniga namuudajkan hadda waan tusaya maktabadayda aan idinka soo saaray elektrooniga ah waa buug kamida buugaagta aad ka akhrin karto si aad u fahamto sidee buu ninkaan saan ku noqday sidee buu u shaqeeyaa sidee buu guusha ku gaaray ilaa waxa dhici karta berrito raggiina halkaan fadhiya qaar idin kamid ah inaad noqoto wasiir inaad noqoto madaxweyne inaad noqoto xildhibaan inaad noqoto gudoomiye gobol inaad noqoto mayorka magaalada inaad noqoto ya isaguna mayor buu mayorka laga soo bilaabay shaqadiisa iyo dhalashadiisii sidee uu shaqeyn jiray muxuu ku fikiri jiray qaabkee uu shaqeeyay muxuu ku leeyahay talo khibradda iyo talada uu ku siinay maxay tahay اقرأ قصة زعيم بالله عربي لو ترجمي في تركي قريه في انجليزي قريه في تركيا في كردستان قريه في تشاينيس قريه انت دونت لغتها حتى لو قري marka qofku haduu qofka kitaab siiradiisa daatiga uu akhriyo macnaha aqoon buu leeyahay isaguna waa ka faa'iideysanaya marka hadda fiiri meeshan waxa ku fadhidaan arday jaamiciyiin ah oo imisa دور بقول أو قفبتهن أنت سوف كلتبتهن يعني وتصالة يعني قضية ولبا يعني أدونك مشغولين يسا نين كانوا كالهذا العادي ما سومها أدونك كلهم مشغولين يا صح وأنا قف مسلمة وأنا قف أنا نوحر وأنا قف أن تجربة كقاعدة كر وأقف أن أي تاي إن أخرس كأنه وكتير وكمديهي كصوتك مثلا waxa kugu filan PDF kan idin siinaya waa hatta internetka bilaash isagoo aad kala soo baxaysa PDF isagoo ah kitaabka soo degsanaysa waa akhrinaysa kadibna waxa weeye waxa laga yaabaa hadaan hatta Carabiga akhrin aqoon fiiri hadaan Carabiga akhrin aqoon laakiin xogaa ka fahmayso waxa laga yaabaa boqolkiiba 30 inaad fahamto kitaab kale hadaa akhriso akhriskaagu vocabulary-gaagu wuu kordhayaa iyo luqadaadu soo hadaa iman shay marka kitaabka kaleeto boqolkiiba 40 baad fahmaysaa كتابك الصدحات بقولك كنتم بفهميس وهكذا كور إلى عاد بقول كيبو بقول كتابك استوى هذا خريدة أتفهمت وبناك عدكت أنت ذالي يصبر أو بانت واحد كبر هذا يسا كتبت أتعيشها هذه نوع عيشها آخر سياسة ده سيرة ذاتية ده إيو بايوغرافية إيو تاريخ دينته فقهك حديثك قبيك سياسة ده نوع عيشها إلى آخر كبلو kuwa kalena raacsi si aad xiiso ugu hayso akhriska oo saacada aad u joogi karto inaad akhriso maktabada u fadhin karto ma garat ninkan yaa yaqaan ya idaacadaha ma ku aragteen iyo TV-yada waa Dr. Mahathir bin Mohamed baa la yiraahdaa waa Malaysia hogaamiyaheedii awal sideetanaadkii iyo toddobaatanaadkii 23 sano hogaaminayo dalkaas kadibna wuu retire kadibna wadankii madaxu isla galay maalin dhaweyd baa hadana lagu soo celiyay ilaa isaga oo 29 sano baarka ka gooyay ayaa dib loo doortay oo dadkiisi yiraahdeen dib bal wadankii u saxniyo oo hogaanka u qabo 39 buu jiraa hadda sanad kale ugu darsaday 39 sano buu jiraa Dr. Mahathir marka kan waa mudakiraadkiisii aqligiisii oo dhan 970 page weeye kitaabkaas 970 safxadood waxaadna ka helaysaa internetka xataa isagoo free oo carabi ah waa ka heli kartaa PDF baad heli kartaa soo degsan kartaa wuxuu faa'iideynayaa taariikhdii wadankaas soo maray oo dhan iyo taariikhda siyaasadiisa soo mareen ya marka ninka siyaasiga ah oo aan Dr. Mahathir oo kala taariikhdiisa wax ka akhrin ama madax adduunka aan taariikhdooda ama kitaab ka akhrin maalin walba kitaab akhrin oo yiraahdo ummad baan hogaaminaya kaas ummadaas god buu kula dhacay isaguna god buu ku dhacay saasa idin sheegay runta iyaguna inay saas oo kale ogaadaan aad bay u fiicnaan lahayd waayo dadka baadiyaha jooga oo iyaga qabyaalada iyo aqoonta aan lahayn jahliga jooga iyagu sidaan hore sheegay waa isku mid waa ummiyiin weey
أميين أمدا يهجامين يسمرك حجاري جاري كرتا أدونك سيدي هجان كرتا سيدي فكرة عصبوك يدي كرتا سيدي دلك لقاريس وهاجين كرتا إذنكم هذا بري إذنكم أنا وحبا آخرين كواس وكالاتات نقونيسان هديد إننا نسبدلين إيجو كراد نقونيسان إنه ميرة سياسيين تا مالين والبطاقة أو عصب أو يماله لكن قف السبب أن وحبا أدونك كآخرين أو فكرة عصب أن كيني أو ضدك هربولها قاري سيدي وقارين أن فيرن أو طلابوين كودين راعين سيدي أبو كقاري ومدنا وهجام يسوون يسود الدليل صورة قل ما أركز دليل يروي وحان إذن كلها الله يا أرنك ذلك أسن إذن كل شيء جيا وايو إندهنا وحان كأجنا يا مستقبل كي أمضان إنا إذن كتين السوء افتيمي إنا إذن كتين قبل يويلن وإنا ذنقطان ضدوك يقارنك اسكدوا الهيا وحان إذن شيء تجربة أنت أنقص أركي دول كان قال هذا مثلا فور إكزامبل dad waxaa jira madow dad waxaa jira cadaan dhulku cadaanka dad madow baa ku nool oo aan loo liidi jiray mesela aan loo liido maraykanka ingiriiska faransiiska iyo meelo kale kala duwan for example wiilka cadaanka waxaa lagu koriyaa wiilka cadaanka waxaa lagu koriyaa oo lagu korkooliyaa oo lagu ciyaarsiiyaa adduunka inuu xukumo aqoonta ugu badanna inuu barto jaamacadda ugu fiicanna inuu galo darajada ugu fiicanna inuu keeno baa lagu gardaadiyaa wiilka madowna waxaa lagu gardaadiyaa in badan oo ka mida sidii uu kordhin lahaa cayrta uu qaato xaafadda cayrta uu ka degan yahay gurigeeda si u bedeli lahaa guri kale u gaari lahaa بنوني سيدو شبكة وقطوري له كمان كسيدو وطمي له ولذلك وحضر كيسا ويل عدانا أو هارفارد ديكتا أما قبر عدانا هارفارد ديكتا أما MIT ديكتا أما بوسطن يونيفرسيتي ديكتا جامعة لها مريكا كأقوى وين ودعس بقشيه indhahaygaas indhahayga harford baan tegey indhahaygaas supermarketka ama markaad soo gasho storeka dharka lagu gato walmartina markaad soo gasho wiil yaro madow baa hooyadiis wuxuu ku khasbaya kabaha Nike la yidhaha Nike ee sportiga oo aanay awoodi karin iyadoo dhan mushaharkeedu 500 yahay kaba 700 inay u gato oo Nike يا iskuulka uu galay jaamacadda uu galayana hadduu jaamacad gaaro waatan ugu hooseys xagee labadan qof xalkoodu iska bedelay maskaxda iska bedeshay maskax midna maskaxdiisii baa laga shaqaysiiyay midna maskaxdiisii meel gumaysi baa la geliyay marka waxaad awoodi kartaa doctor Mahathir caaw guriga inuu kula joogo هذا داد ماليشيا دكتور ترى دكتور مهاتير برا ساعدنا نركض هو قلون ما من يليس هذا تركي دكتور إنه وده مواتقناه إردوغان ماركي كراني يا لكن هذا كتبتي لقى آخري تركيا لقى قرية إردوغان يا أكبرتي أنا آخري إردوغان وحوي لما مغناني وحوي لما قيها مجرد فكر كيسي يا مسكح ديسي يا دلال كيسي يا وحي إسماعيل هدان روينا كل رقم واحد وأنا أخري يقول فلان مرك هدان رو أنا أقول مركين أخوش قيستو أنا رأى أولاً واحد إلى هذا لي كوان يو وهذا تشاينيس وها مرة بختي لكن كتابه سي تاريخ سي أدونك ولوي تعالى وهذا سنغافور أباه وها مدحضه وها رئيس وزراء وها أفر إلى تنصر dalka Singapore ka soo qaaday dal yar oo jasiirad iska yar ah oo gaajo ah oo qofku dakhligiisu yaani sanadkii soo gasha ay tahay $250 oo gaarsiiyay $46,000 qofka sanadkiinu dakhligiisu noqdo qof walba oo shacabka ka mid 4 milyan inuu qof walba sanadkii waxa soo gala $50,000 ay noqoto baasaboorkooduna uu noqdo baasaboorka adduunka ugu horeeya oo Mareykan iyo Yurub ka horeeya
dekedooda way noqoto dekeda adduunka ugu maaratay ugu weyn ugu ballaaran airbortkooda oo noqdo airbortka adduunka ugu weyn iyagoo 4 milyan ah airbortkooda sanadkii waxaa isticmaala 100 milyan in ku dhow magaaladooda isticmaalo transit ku mara hankaaga iyo aqoonta waxay keenaysaa adigu airbortka aad dhisanaysaa wataan lahayn adduunka iyo caalamka siduu u foqoriyo akhrisku wuxuu ku keenaa adduunku siduu u nool yahay inaad ogaato masalan adiga hadda haddii lagu yidhaahdo $20,000 baa bishii lagu siinaya wax weyn bay kula noqonaysaa soo ma ka war haddii aad Hargeysa joogo lagu yidhaahdo $20,000 baad bishii qaadanaysaa mushaar ya ii jawaabade ma waalan lahayd mise waa wareeri lahayd caawa mise waa dawakhi lahayd ya ma dawakhi lahayd dee waxaa suurtagal ah adduunka dad waxaa jira qaata maalintii 1 milyan ay soo gasho maalintii dad ay $100,000 ay soo gasho maalintii way day maaha shahr marka taas waxay ku tusinaysaa adduunka markaad ogaato inaad istiraahdo war 20,000 maxay tahay Hargeysa waxaan rabaa aniga inaan ka sameeyo qof walba oo Hargeysa ku nool milyan iyo barka inay sanadkii soo gasho $100,000 halkaas halkaas marka gaari karaa waana suurtagal ma aha suurtagal ahayn dad kula mid ah sameeya waxaadna ku ogaanaysaa akhriska markaad wax akhrido oo adduunka ogaato liikwaan halkaas u gaarsiiyey marka liikwaan iyo maskaxdiisii akhriska unbaad ku heli kartaa si kale kuma heli karta kitaabadii uu qoray meesha yaaleen kitaab wuxuu leeyahay kan Singapore story baa la yidhaahdaa waa mudakiraad midka kaleeto waxaa la yidhaahdaa mid kaleeto uu qoray isagana waxaa la yidhaahdaa Singapore min third world ila first world sidee baan Singapore uga baxday caalam الثالث ila caalam الأول ay ugu guurtay ninkaan ma taqaanin isaga meel fog ma aadayne waa amiirka Dubai waxaa la yidhaahdaa Mohammed bin Rashid Al Maktoum Mohammed bin Rashid Al Maktoum Dubai 76 Soomaaliya ka horreysay 75 Hargeysa iyo Boosaaso iyo Muqdisho ayaa Dubai ka horreeyay بالحقيقة يكون شيء يا ما هذا بالحقيقة Soomaaliya Dubai tagtay ganacsatada Imaaraadku waxay ka bari jireen inay shirkad la noqdaan odaasha ganacsatada ariga geeya ee Boosaaso ka qaaday berbera ka qaada ariga ka qaada maanta laakiin dad isku maaragtay level ah ummadaasi ummadaan ma aha xagga adduunyada marka kitaab uu leeyahay Mohammed bin Rashid ya ru'yati my vision aragtidayda marka kitaabkaas muqaddimadiisa wuxuu leeyahay adduunka siyaasiyiintu way ku bateen asiyaasatu wuxuu leeyahay madiyacatun lilwaqti way madiyacatun lilwaqti waqti dhumis way ya wadamada adduunka dadku waxay isku dhaafeen furasta sida looga faa'iideysto sida looga faa'iideysto dalkaaga iyo dadkaaga dawladda waxaa jira aan resource lahayn aan lahayn mawaarid batrool lahayn gaas lahayn xoolo lahayn beero lahayn laakiin lacag sameeyo hormaray oo shacabkoodii hormariyay oo dhulkoodii hormariyay kuwa waxaa jira xoolahaas oo dhan ku fadhiya ummadoodu gaajaysan tahay dhulkoodu burbursan yahay jid aan lahayn koronto aan lahayn biyo aan lahayn waxba aan lahayn ya maxaa keenay marka meeshii yarayda tuulada ahayd ee gaajada ahayd ma batrool inuu iskaga soo daatay ma mudanaysa xataa batrool badan ma la duway wax batrool badan ma laha cilmigu dekedeeduna maanta waxay ku jirtaa 10 dekedood adduunka u sareeya bay ka mid tahay لعلمكم هذا التحديات في سباق التميز التحديات في سباق التميز كتاب كان صوب حي دوري 8 سنة كهر مركو صوب حي بان أخري لكن حقابه كسو قوريي سائدين شيء جايو دبي مركي ربتين هذا ده إني سميس وحي في رسي أو هجامك هنجاك أوفري دولتي يكون رئيسي أهرمرين سنغافورة كانت تطبق ودرسدين وسو دراسية ليكوانكي iyo Malaysiyaanka hadda aan idin sheegayo kala soo daraasayeen tajribadooda soo arkeen waa ka soo guuriyeen koodi way ku dabaqeen cirkay galeen waaba dhaafeen ninkan madow ma taqaana Paul Kagame baa la yiraahdaa waa Rwanda madaxweynaheeda isaguna hadda
laynkii uu ku daba jiraayo kutubta Lee Kuan iyo Mahathir iyo Erdogan iyo ayuu akhriya markaas ku dabaqaa dhulkiisa sida iyagu u hormareen in dhulkiisa iyo dadkiisuna u hormaraan akhrisku saasuu caqliga u ballaariyaa oo maskaxda u kobciyaa walaalayaal intaa haddii aan ka soo baxo oo namaadij yani waxaan ka rabay inaan idhaahdo akhrisku waxaad ku noolaanaysaa culimadii fuqahadii mujaahidiintii madaxdii khulafadii dadkii adduunkan wax ka sameeyey kuwa caalamkeennan hadda jooga inaad la noolaato ayaad heli kartaa ee ma aha yabaq yaroo facebooka gabar baa soo qortay sawirkeeda soo qortay saan isu soo taagtay wiil baa saan isu soo taagay halka soo qortay labada farood saa yiri ciyaal fartu saa yiri waxaas that's not knowledge waxaas cilmi maaha wax waqtiga lagu dhumiyana maaha idin maliha eeginina iska eeg waqti yar u sameeyo 10 minutes 5 minutes 20 minutes daalaco maxaa ka socda kadibna iska tag aqalkaaga laakiin wax aqligaaga anfac raadi waa maktabada waa library-ga waa kutubta hadda waa la fududeeyey haddaa rabtona kitaabkiiyo sidiisii qaado oo akhri la fuul baska aad fuulayso gaariga aad fuulayso halkan iyo berbera u socotaa kitaab dhamay haddii kale iPad-kaaga ku qaado haddii kale mobilkaaga ku qaado mobilada waa iska wataa kamathali alximaari yaxmilu asfaaran weeye dadka intooda badan kamathali alximaari yaxmilu asfaaran baa ku rumowda maxaa dhacay mobilkan wuxuu ku noqon karaa macallin wuxuu ku noqon karaa library wuxuu ku noqon karaa wax allaale iyo wax adduun ka socda oo dhan inaad ka maamusho tusaale siina waa inuu sirtaan xogaa idiin qishaaya wax yar fiiri internet baanan haysan halkan sorry waxa idin kaadi library baa meeshan ku taalla soo ma library electronic waay adoo documents badan ku xifdisanaya haddana kutub iyo documenti iyo adduun baa ka buuxa akhlaaq ahli lqur'aan albidaaya walnihaaya الأربعون النووية 40 حديث جامع العلوم والحكم كتاب الروضتين وأخبار الدولتين قصعه مجلدات بدن واي صحيح البخاري الإتقان في علوم القرآن قصعه الجواهر والدرر كان متقن الجواهر والدرر يا أخي وتخصصنا شريعة إيو حديث إيو سير الجواهر والدرر يا في ترجمة شيخ الإسلام ابن حجر وهو يا العسقلاني ترجمة أغفي عن أغف وناكسن كتاب كاسواي وحنا قرأ هذا يجيسي هو نيكل أورنشري الإيشك كتاب بدن الحديث قالها السخاوي العلامة السخاوي الله يبارك فيك سخاوي قري marka waa tarjamo kitaab weyn way مثلا taariikh الخلفاء khulafadii oo dhan buu ka siinayaa islaamka laga soo bilaabo Abu Bakar Siddiq ilaa khilaafadii islaamka Abbaasiyiinta ku u dambeeyay imaam waxa iskale نقرار مصر إيشك سيوطي رحمه الله تعالى يعني كتبتي وحن كوضع هل كان واللايبراري هذا يعني موبيلنا الآن وضعته موبيل كاسيركا أيات كسو أورسنيسا وحا صوتا هل كان كسو أورسنيسا مركب مسورتوبي كرتا إناد فيسبوك إيو تويتر ما هنا وحكا لأيضا كفا إيدي سنية انستغرام أو عن كتبي كوكو جرين أو عن علمي كوكو جرين أو عن ثقافة كوكو جرين أو عن ريسيرش كوكو جرين هديك لو واحد نقوليسا كمثل الحمار يحمل أسفارا وكدول صارنتay kutubtii adigu la iska socotaa sidii maartay tusaalahaas xun ee la soo qaaday mid kale aan tusaa mesela kaas waa library-gan kale to mesela igu jira meesha iri kutubada ajnabiga mesela halkan iskaga wadanaysa hadba kitaab baa la soo baxay diyaaradda saaran tahay baska saaran tahay gaariga saaran tahay makhaayada fadhida
waxaa la noolaanaysaa maalin baa 30 page 40 page 50 page mahaatiir kitaabkiisa 900 page waan akhri alxamdulillah wax badan waan ka faa'iiday ummadda sidii loo horumarin lahaa talaabooyinka Malaysia si loo raaci karaa ayaad maartay wixii oo dhan ku 900 page ku soo qoray waa diyaar ka faa'iidayso batroolka see ula soo baxeen buu ka sheekeynayaa see u maamuleen buu ka sheekeynayaa sidee markii la hor istaagay Mareykanku hor istaagay ay uga roonadeen China election waxbuu tajaarib buu ka sheekeynayaa dhulkooda see u dhiseen magaalada Kuala Lumpur ee maanta caalamka magaalooyinka ugu qurux badan ka mid ah taawirada ugu dheer caalamka ay ku yaalaan waxay magaalo sidaan Hargeysa oo kale cimaaradda ugu dheer 10 dabaq ay tahay 7 dabaq ay tahay ayay ahayd 30 sano ka hor wuxuu leeyahay halkan dhulka tago waxaan fiirin jiray why not anigana magaalada sida u noqon weyd يعني كتبتي أردن ما أنت حتى البرارج إنا وضعت إلهي وفد حجة نقطة حجة كتابك إنا المكتبة دي كلية آدم ما أنت بالله بها حتى مكتبة إن تك البرارج تك هل كانوا قاعد نسا أي بارك أي ركابة كشان نسا وحي كتبها وحصلوا كتب أجنبي عالمك إيه وحيالك السعودية هالنقطان ليدرشيب هالنقطان هالنقطان مارتي فكر هالنقطان سياسة هالنقطان إسلام هالنقطان وحيالك كلام والله يا لوحان ورك كوسو جبينية آخر اسكو كوسو ورتقلينية محمد إدريس عاود ولا يناوك حيسته وما باهني دينا تراهضه 5 دقيقة شيخ هو ما يسين كرتا جزاكم الله خيرا كتابك بهلك يا لقات هدي الدوني سنة واتان وذات كان فكر كسوحي هي وفكرها